wiil dhalinyaro ah ayaa goobaha dalxiiska ee waddanka Masar gaar ahaan ahraamta loo dalxiis tago ee waddankaas wuxuu ku iibinayay cajalado. waxaa maalin maalmaha ka mid ah u timid gabar ajnabi ah oo doonaysay inay ka iibsato cajaladaha dalxiisayaashu ay xiisayaan, waxayna dhowr jeer ku celisay cajaladihii uu hayay oo ay ku dooq weerartay sidii ay hadba mid u dhageysanaysay. waxayna dhahaysay kama helin, laakiin si kedis ah ayaa gacantiisa waxaa u soo gashay cajalad Qur'aanka Kariimka ah oo cod macaan uu ku akhrinayay Sheekh Baasid Cabdulsamed. waxayna ka heshay cajalkii oo ay ku dhigtay, waxayna tiri kan ayaan rabaa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ka diiday inuu siiyo cajalkii, wuxuuna ku yiri cajalkan waxaa ku duuban Qur'aanka Kariimka ah, adigana waxaa tahay qof aan muslimad ahayn, marka kaama iibin karo. waxay u soo taagtay lacag $100 ah, waxayna tiri iga iibi cajalkan. laakiin waa ka diiday wiilkii. si ay cajalka u hesho waxay daboolatay madaxa, waxayna ku tiri hadda waad aragtaa waxaan xirtay dharkii haweenka muslimka ah ee iga iibi cajalkan. waxaa laga yaabaa haddii aan dhageysto inaan ku fikiro inaan fahmo diinkan, waxaana laga yaabaa inaan soo galo diinta Islaamka. wiilkii ayaa aad u farxay, wuxuuna ku yiri cajalkan kaama iibinayo, laakiin waxaan kuu siinayaa hadiyad ahaan. waxaa laga yaabaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu soo hanuuniyo xaqa oo aad soo gasho diinta Islaamka. wiilkii ayaa kula ballamay inay u soo sheegto haddii ay ka hesho, waxayna kala qaateen xiriir. waxaa la yaab ah in wiilkan wanaagsan ee sidan u dhaqmaya uusan ahayn wiil ku wanaagsan xifdinta 5 salaadood ee waajibka ah oo waqtigeeda uusan ilaalin jirin. habeenkii oo dhan ma uusan hurdin, wuxuuna ka shalaynayay xaalka uu ku sugan yahay. wuxuuna niyadda iska lahaa waxaan ka tegaynaa Qur'aankan Kariimka ah iyadoo dadkii aan macnihiisa fahmin sidaan u jeclaysanayaan. isagoo ilintu ka daadanayso wuxuu go'aansaday in Allah subxaanahu wa tacaala uu u toobad keeno, salaadiisa ilaaliyo, markastana uu akhristo Qur'aanka Kariimka ah. waxaa isbedeshay noloshiisa, wuxuuna dareemay farxad iyo raynrayn uusan horay weligiis u arkin. wuxuu goobtiisii cajaladaha u bedelay meel lagu iibiyo kaliya cajaladaha Qur'aanka Kariimka ah. waxayna maalin maalmaha ka mid ah wada xiriireen gabadhii uu darteed ku soo hanuunay, waxayna ugu bishaaraysay inay qaadatay diinta Islaamka kuna dhawaaqday shahaadada. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله. qisadan waxaa laga fahmi karaa in qofku Ilaahay hanuun la doono cidina aysan ka hor istaagi karin. Ilaahay haninaga dhigo kuwii dembigooda la dhaafo. aan ku sallayno xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. aan ku xasuusiyo walaal inaad qisadan la sii wadaagto walaalaha khayrka jecel, hana hilmaamin inaad nagu soo biirto si aan kula wadaagno qisada xigta insha Allah.